السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوعاً dadweynihii Soomaali meel ay joogaan waa qaracmeen qayl lagu dhufto waa wareey waana la dhacay turki baana dhacday waa wareey war soo baxay meel walba bala qaylinaya maanta yaa xitaa waxa qaylo bilaabeen qabiil waxa Xasan Sheekh ka dhashay baa qaylo bilaabeen dadkaas waxa way ma hadli jireen normal ahaan marka Xasan Sheekh hadal ka soo qaadid waxa way ugu soo boodaa ariyaha igarkii noo daa lagu dhahay ariyaha lagu dhahay yaa maanta waa kan ayaa qaylinaya oo hurdada ka dhageysto waa kana oo maxay la adeerkay inuu maxtuudi sii jooga sax ma ah waa inuu isbedel siyaasi dhaca isbedel siyaasi oo dhig ku daadan oo dastuuri inuu dhaco waay fiican dadkan hurdada ka soo qaadana fiican yaa hurdada in la kaco yaa dal xaray wuxuu yahay bay hadda arkeen wujida hurdada ka kaca welcome marka ninkii oo doqonka oo Xasan Sheekh la dhahay aawi abisla fiican intuu taagan fiirsada waa kana asagoo baryotan raadinay soo jeed meel walba baryotan buu taagan yaa wixii oo maxaa la khayraada wadankii intuu free ku bixiyay lacag ku dhiibay uu baryotan intuu u taagan baryotan ka fududsan mujida uu isla fiican intuu jidaan isbuucan wuxuu la kulmayaa safiirada oo Yurub oo u joogta xamar uu inta la taagan oo baryotan ka qaadanaya mujida marka wakaas anigaas damir laawaha barnaamijkan inta ku arkaynaa heshiiskii oo inta ku jirtaan oo Soomaaliya oo dhan ka qeylisiisay yaa in la kansali karo yaana kansali kara oo heshiiskaas burin kara marka heshiiskaas laba qolo horta waxay ka qaban karaan oo ay ka hortagi karaan heshiiskaas kow waxa ka hortagi kara golaha shacabka ama baarlamaanka marka ayaga waxa weeye intay isku yimaadaan heshiiskan waxa weeye baaritaan way ku samayn karaan marka baaritaan way ku sameeyaan waxa weeye wayna kansali karaan ayadoo isticmaalayaan khaladaadkii oo hore ugu soo aragnay barnaamij hore ugu soo aragnay ayadoo isticmaalayaan ay kansali karaan waxay dhihi karaan heshiiskan wuxuu lid ku yahay xornimada waddanka heshiiskan wuxuu lid ku yahay cadaaladda waddanka heshiiskan wuxuu lid ku yahay tartan ganacsi sababtoo ah sida heshiiska u jideen iyo sida barnaamijka hore aan kusoo sheegnay heshiiskan waxa weeye Turkida baa la siiyay exclusive rights ay kaliya suuqyo dhan loo xiray marka ayagoo golaha shacabka ama baarlamaanka ayagoo arrimaha isticmaalayaan waxa weeye way isticmaali karaan wayna kansali karaan laakiin nasiib darro waxa weeye ilaa hadda qof ayaa ka hadlay weli ma jiro yaa in yar oo gacan ku tirisa ka hadlay oo heshiiskii ka qayliyaan marka dadka oo dhowr qof oo arrintan ka qayliyaan waxa kamid ah ninkan professor Samatar Taqanan Boomalanaya marka asaga waxa weeye falxumaday Turkiga ku kaceen iyo Xasan Sheekh buu intuu wuxuu ku sheegay inay tahay gumaysi cusub inay tahay ku sheegay mujidaan marka maanta waxa laga rabaa golaha shacabka ama baarlamaanka inuu hurdada ka kacaan oo qabsadaan hawsha bushaar ku qaataan oo qabsadaan hawsha loo soo dhaariyay haddana qolo kale oo heshiiskan kansali kara waa maxkamadda way soo jeedaan nimankan maxkamadda sheeganaya oo xamar jooga waxa weeye ayagana waa qolo kale oo heshiiskan si toos ah u kansali kara way marka sida hore u soo aragteen iyo sida barnaamijka hore ugu soo aragnay heshiiskan waxa weeye khalad baa ku jiray oo ah in muran hadduu ka yimaado heshiiskan in Turkida maxkamad ku taala lagu qabanayo murankaas lagu xalinayo marka taas waxa weeye nid bay ku tahay sharciga waddanka sababtoo ah wixii waddanka ka dhaca in maxkamadda Soomaaliya lagu qabtay ahayd haddana wax kale oo khalad kale oo aan ku saaranay barnaamijka hore waxa weeye heshiiskan wuxuu lid ku yahay xornimada dalka Soomaaliya haddana lid ku yahay maxaa la dhahay maslaxadda dadweynaha Soomaaliya sababtoo ah nimankan Turkida markii la siinay kontraktiga lacag fara badan baa loo cafiyay lacag fara badan oo laga rabay loo cafiyay waxiina raqiis bilaash ku qaata baa la dhahay mujidaan marka ayada oo isaas isticmaalayaan ay maxkamadda markaas waxay dhihi karaan ayaga oo u doodaya maslaxadda dadweynaha waxay dhihi karaan kontraktigan waa kansalayna annagoo u doodayna ama annagoo u ololaynayna maslaxadda dadweynaha Soomaaliya marka saas way samayn karaan marka dadweynaha laftigoodna ayagana arrintan waxay ka qaban karaan hadda ka soo qaad hadda xildhibaanada meesha fadhiyaan qabiil bay meesha ku yimaadeen qabiil bay ku yimaadeen marka qabiil bay matalaan marka qabiil walba xildhibaanadood inay la hadlaan way telefoonka soo qabtaan oo la hadlaan oo ku soo qayleen oo soo pressure la saaro oo lagu soo qayliyo marka taasna waxa weeye dadweynaha hawl kale ay qaban karaan way haddana sidoo kale hawl kale ay dadweynaha qaban karaan waxa weeye
inay ku qayliyaan oday beeledyada oo soo kiciyaan odayada oo markaa arrintan si rasmi ah loo qayliyo oo looga hortago